guud ahaanba saaka si rasmi ah loogu fadhiistay imtixaanka fasalada 8aadka iyo 12aadka dhammaanba gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland waxaana maanta aan kormeer ku soo marnay qaar ka mid ah dugsiyada ku yaala magaalada Boorama ee ay ardaydu ku galeen imtixaanaadka isla markaana ay indhahaagu qabanayeen imtixaanaadka oo si habsami loo socda iyo arday walba oo si taxaddar looga shaqeynaya waraaqda imtixaanka gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal Mudane Cumar Suldaan Indhamood oo aanu ku booqanay xafiiskiisa ayaa noo sheegay in guud ahaanba goobaha imtixaanaadka lagu galayo ee gobolka Awdal ay yihiin 22 goobood 9 ka midna ay yihiin gudaha magaalada Boorama iyo dugsiyada sare gobolka Awdal hadan wax ka sheego goobaha lagu galayo imtixaanada dugsiyada dhexe iyo kuwa sare guud ahaan waxa weeyaan 22 goobood weeyaan 6 waxa weeye goobood dugsiyada sare form 4 inta kalena waxa weeyaan 16 ka soo haray waa dugsiyada grade 8 ka loo yaqaan dugsiyada dhexe weeye Allahumma salli ala Muhammad magaalada dhexdeeda Boorama magaalada madaxda gobolka Awdal dhexdeeda waxa ku galaya 9 goobood weeyaan 4 waa sare وفون 4 أفر شانينا وحويان تحوى جريد 8 ويان إلهي مهدي جودهان يقارهان با سانو وذوقناهي شقلا امتحان كوحي بلا منطي قبان قابدي دي ديارين تيدي وحوالبا لحدي بلا منطي شقدو لكن امتحانك wuxuu bilaabmay isagoo 8 subaxnimo sida sharciga imtixaanka wadanka uu dhigayo 8 uu dalka dhan ka bilaabmay gobolka wadana xilligan uu bilaabmay wax shaqaaqa iyo wax qalalaasa ma dhicin si fiican oo habboon sidii la rabay ayuu imtixaanku bilaabmay intuu imtixaanku bilaabmin goob walba ardayda ku galaysa waxa si habsami ah ula hadlay geesta kale waxa iyagu ka dareen celiyay u fadhiisiga imtixaanaadka qaar ka mid ah ardayda maanta imtixaanka u fadhiistay oo ka waramay shucuurtooda imtixaanka maanta waxaan oran karaa waa mid aad iyo aad u wanaagsan haday tahay xagga ilaalinta xagga ardayda akhlaaqda ay macallimiinta ardayda loo dhaqmayaan tarbiyada islaamiga aad bayna u fududayd waxaan rajaynaynaa hadaynu nahay Rashaq Ali Jawhar inaynu maadadaas aan inta majority-ga inaynu qeynaa ay akeenayna wallahi aad buu fiican maanta laakiin waxa dambe sina wax filayna in sidaas ka kala noqdo sida kale maanta aan galay kale noqdo waxaan ku rajaynayaa dugsi shaajaw inuu maanta Ismaaciil Cabdilcasiis Cabdillaahi shabakada caalamiga ee Boorama News magaalada Boorama